waraysigii madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta marti noogu ahaa daartan xarunta u ah BBC da London waxaanu ka wareysanay arrimo ku saabsan shirkii maalgashiga Afrika ee dhawaan London ka dhacay Isniintii iyo Talaadadii ayuu socday madaxweynayaal kale oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galay waxa kale oo ka qayb galay aqoon-yahano iyo maalqabeeno doonaya adduunka hadba meeshii ilaa ay ka arkaan in ay maalgashadaan guriga BBC Cabdiraxmaan Koronto oo madaxweynaha Puntland wareystay ayaa markii hore waxa uu weydiiyay bal ujeedadii shirkan maalgashiga Afrika ee ka qayb galay wixii ay ahayd waa masan Cabdiraxmaan waana kaaga mahadnaqayaa martiqaadka waan ku faraxsanahay soo booqdo ujeedada waxay ahayd runtii shir muhiim u ah Afrika iyo Soomaaliya iyo Puntland intaba oo ahaa shirka maalgashiga Afrika oo lagu qabtay wadankan Ingiriiska magaalada London oo la bari soconayay shalay daraad 20 bisha barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij runtii aad u wanaagsan oo la isu keenayay Afrika oo ah qaarad dihin qaarad kheyraad dabiici oo tiro badan leh qaarad aan ka horumarin dhanka wax soo saarka iyo kamarida caalamka adduunka oo u jeeday fursad inay Afrika tahay maanta frontierska meelaha dihin oo loo baahan yahay in la maalgashado marka isu imaatinkoodu wuxuu dhalayaa wax weyn dadka lacagta haystay iyo maalgashiga iyo anagoo oo wadamo u badan Afrika leh kheyraad dabiici ah oo qani ah laakiin dadkii faqri yihiin marka inaan tiknoolajiyadooda iyo dhaqaalahooda ka faa'iideysano si aan wax soo saarno dalalkeennii marka wuxuu ahaa shir aad muhiim shirkaasaan ka soo qayb galay sida wararka nagu soo gaaraya dowladda federaalka cidna kama joogin idinka ayaa ka qayb galay sidee markaa u matasheen hadday timaado Soomaalida guud ahaan طبعا anigu hadaan joogo oo Puntland matalay Soomaalina war matalaa sababtoo waxa weeye Puntland ma iibin kartid dad Soomaali iibin ya marka waa in aan dabcan anigu de hadda Soomaali cid ii wakiilto Soomaali matali tiri ma jirto laakiin aniga Cabdiweli ahaan mas'uuliyad ba iga saaran hadaan meeshii imid oo u imid maalgelin aan u doonayo Puntland haddana waa inaan iibiyaa Soomaaliya sababtoo Puntland kuma taalo jasiirad ka baxsan Soomaaliya ka mid tahay Soomaaliya la xaal tahay Soomaaliya la situation tahay marka waa inaan iibinaa dabiicadda iyo kheyraadka Soomaaliya oo dhan bartikood ku weydiinayaan Puntland sababtoo ah Puntland ka socotaa marka Puntland sidoo kale inaan iibino kheyraadkeeda waxa looga baahan yahay in la maalgashado fursadaha ka jira marka waxa isleeyahay waan matali karay waan matalay Soomaaliya iyo Puntland labadaba waxa ka soo baxay baad isleedahay guud ahaan kulankaasi oo dan u ah labada dhinacba Soomaaliya iyo Puntland sidoo marka laga hadlayo dhaqaalaha ama horumarka dhaqaale waxa la yiraahdaa macluumaadku waa lacag information is money waxa muhiimka uu ka soo baxay waxay ahayd in Afrikana la barto waxa ay tahay iyo waxa ay haysato iyo kheyraadkeeda iyo wax laga faa'iidi karo dhanka kale nana aan barano kambaniyaashi iyo hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya maalgashan lahaa marka waxa ka soo baxay waxa weeye horta in la isbartay waa shirkii koowaad shirka labaad waa dhici doona isna sanad soo socda lagu dhigi doona magaalada Abuja dalka Nigeria marka wuxuu noqonayaa shir joogto ah oo maalgashi Afrika la qabto marka shirkii koowaad markaan eegno uu ahaa iyo marka aynu kambaniyasha ka soo qayb galay iyo wadamada yimid ee madaxda isugu timid waxa isleeyahay isbarasha ka soo baxday isfaham baa ka soo baxay talaada xigtana waxa weeye marka kambani walba wuxuu isagu danta u lahaa iyo meesha uu inuu maalgashado inuu markaas la sii hadlo oo halka laga sii wado laga sii maqaado waxa kale oo jiray shirkii shidaalka iyo gaaska Soomaaliya oo halkan ka dhacayay dabcan kamaada soo qayb galin inkastoo dhulka baaritaanka dhinaca badda laga sameeyay la soo bandhigay Puntland ay ku jirto ilaa meel u dhow qadka lagu muransan yahay ee Kenya iyo Soomaaliya in shidaal laga baaro marka shirkaasi madaneynayni miya maxaa uga soo dhigay maya shirka anagu kamana aan qayb galin nala kuma martiqaadin dabcan way ahayd in Puntland ka qayb gasho haddii ay khuseynayso dhulka iyadoo ay xukunto oo maamulkeeda ka tirsan shaqada laga qabanayo ku saabsan macdan iyo shidaal oo anagu aan ka warqabin oo anaga ka talagelin haddii inuu wax shaqeynayo ogeyn adbood ogtahay
marka haddii la rabo wixii inay shaqeeyaan waa inay noqotaa qaab laysla ogyahay heshiis lagu yahay lagana wada qayb galaa marka micno badan ma samaynayso in dowladda federaalka ahi iyo wasiiradeedu in ay shirka qayb galaan yidhahdaan Soomaaliya oo dhan baanu wakiil u nahay anana aan ka daba qaylno nidaano wakiil nagama aha murankaasuna weligii socdaa hay'adda wax faa'iido ku jirahay ma jiraan marka waxa wanaagsan si wanaagsan oo qaab wanaagsan in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wada fariistaan waxyaabahan qaabka loo maareynayo khayraadka dabiiciga dalku leeyahayna ama loo qaybsanayo revenue-ga dakhliga ama loo qaybsanayo mas'uuliyadana wax loo baahan in laga wada hadlo oo iyadoo wax la isku og yahay heshiisna lagu yahay in lagu hawlgalo saasay ayaga ugu badisaa dowladda federaalka dowladda Puntland iyo dowlad goboleedyada kalena ay ugu badisaa bayana ila tahay ra'yiga